qaansaroobad oo magaceeda sayniska loo yaqaan rainbow waa muuqaal dabiici ah oo isku qotomiya daruuraha hooran ee roobka kaasoo u muuqda qaab qaanso ah oo soo xoodan ama dhig oo kale ah. qaansoroobeedu waxay leedahay midabo 7 ah, laakiin indhuhu waxay qabtaan wax aan ka badnayn 4 midab oo kala ah casaan, buluug, caddaan iyo huruud. qaansoroobeedu waxay samaysmataa markii iftiinka qorraxdu uu si qumaati ah ugu dhaco dhibcaha roobka ee darandooriga u socda, kuwaas oo dabadeed sameeya shaygan cajiibka ah ee cirka iyo dhulka isku qotomiya. jeegaanta ama qaansoroobaadu waa qaab wareegsan oo dabiici ah, laakiin indhaha waxaa lagu arkaa qaab sida dhigta oo kale ah oo 2 af dhulka ku haysata, yacni sida dhigta aqal Soomaaliga oo kale ayay u qaabad eekaataa. waa marka aan wax qalab ah la adeegsanayn microscope. haddaba way adag tahay in qaansoroobaada la fahmo jeeroon la fahmin midabada qorraxda ka soo bikaacaya oo aynu keliya ka naqaano midabka cad ee aynu wax ku aragno. qorraxdu waxay leedahay ama ka soo birqa midabo aad u tiro badan oo aanay indhaha qaawani arki karin, laakiin marka iftiinka qorraxdu uu soo dhex maro dhibcaha roobka ee darandooriga u socda, waxay inoo sahlanaataa in aynu aragno wax ka mid ah midabada tirada badan ee ay qorraxdu leedahay. isku soo wada duubo, qaansoroobaadu waa midabyadii qorraxda oo ay inoo soo gudbinayaan dhibcaha roobka ee da'aya. raacatadii Soomaaliyeed markii ay fasir u waayeen waxa ay qaansoroobaad u tahay ayaa waxay ku fasireen balaayo roobka loo soo diray oo nuugaysa daruuraha hooran, taas oo markay arkaanba ay ka rajo dhigaan iyagoo yidhaahda roobkii qaanso ayaa qabsatay. yaraantaydii waxaan ka mid ahaa dadyowgii khuraafaadka ka aaminsanaa qaansoroobaada, oo waxaan aaminsanaa in haddii ay qaansoroobaadu qabsato qof ama neef ay dhiigga iyo dheecaankaba ka jaqdo, sidaasna ay ku dhinto oo ay tahay dhibco aad u holcaya oo aan waxba reebaynin. waxaa jira dhowr nooc oo qaansoroobaad ah, sida in la arko qaansoroobaad gebigeeduba wada cad oo aan lahayn wax midabo ah oo lagu kala soco, iyo in la arko 2 qaansoroobaad oo isku shaqlan oo isdul saaran. laakiin labada nooc ee dambe waa dhif iyo naadir in la arkaa, inta badan ma dhacdo. guntii iyo gunaanadkii qaansoroobaadu waa ilaysnoqod qorraxeed ka soo bikaacaya biyo da'aya oo lagu arkay xaalad roobaad oo aad u degan aadna u qurux badan. dhab ahaan qaansoroobaadu waa shay aad u qurux badan oo indhaha u roon, siiba markaad joogto dhul daaqsimeed alla u nimceeyey oo rays iyo ramaas badan. waxaad sawiranaysaa inaad ku jirto jannadii ifka. alla roobka iyo raxmaadkiisa haynoo shubo oo haynaga soo jebiyo abaaraha iyo oonka daran ee deegaanadeenna Soomaalida ku yuurura. haddaba adigu maxaad ka aaminsanayd qaansoroobaada ama jeegaanta? maxaad u taqaanaa magac ahaan? mase kula tahay in ay roobka wax saameyn ah ku yeelato? halkani waa kanaalkeena Maxay Channel ee like saar una sii sheer garee saaxiibadaada kale. haddii aad nagu cusub tahay wax badan ayaa ku dhaafay.